Dugsiga ee magaalada Burco ayaa munaasibad sagootina Usameyey ardaydii sanadkan ka baxday fasalada dugsiga dhexe ee kuwaas oo kaalmo muhiim ah ka galay natiijada imtixaanaadkii Shahadiga ee dugsiyada dhexe. Munaasibadan oo habeennimadii xalay ahaa ka qabsoontay Hotel Cafe ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga waalidiin iyo macallimiinta wax ka dhiga dugsigaasi. Ugu horeynba waxa halkaasi khudbado kala duwan oo iskugu jira gabayo iyo lecture ka soo jeediyay ardayda sanadkan ka baxday fasalada 8aad ee dugsiga waxa jirta ardayda qaar markay imtixaanka ku hooseeyaan inay kaliya jabaan imtixaanka ay ku hooseeyeen dartii qaar kalena markay sareeyaan ay isdhigtaan oo aanay halkii wax akhriskii ka sii bilaabin. waxaan oran lahaa ardayda hooseysay inkastoo ay natiijooyin fiican wada keenay halka dadaalka ka sii wada dadka adduunka ugu badan ee horumarka gaaray ee la yaqaano ee laga sheekeeyo waa dad maxaa la yiraahdaa dugsiyadoodii intooda badan ka soo dhici jirtay hase ahaatee way iskaabeen sidii u dhacayeen meel may gaarin. markaa waxaan idin kula talin lahaa inaan nolosha ka rajo dhigin. أعيروني سمعكم لو سمحتم. يسعدني كثيرا أن نقف أمامكم لألقي عليكم كلمة تتعلق بالعلم وقبل أن أتدرج إلى صلب الموضوع وجه شرطنا وثانيا إلى إدارة المعلمين والمدارس الذين يرفعون منارة العلم ويحاربون الجهل الذين علمون وقعوا يترتعون. dunidu qabyaaladii way ugu qaraadhahay ruuxii qaraab iyo quudkaba ka doonto wala waa qalfoof maran oo waa wada qodxaano wax qaninta oo daran. xubno ku hadlay afka waalidiinta ardayda ayaa iyaguna u mahadnaqay tacabkii ay ardayda soo galiyeen maamulka dugsiga waxaan u soo jeedinayaa markaa way ku mahadsan yihiin ilaahay baana mahad u sugnaatay. waxaan markaa u tawjiih yar u soo jeedinayaa ardayda markaa u hambalyeynaya inay guul fiican ka keeneen imtixaankii. qaybo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiga oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa talooyin u soo jeediyay ardayda sanadkan macasalaamaysay waxbarashada dugsiyada dhexe. ay muuqato inaynu aad u faraxsanahay iskoor wanaagsan keenay aynu ka soo gudubnay ayaamihii adkaa ee imtixaanka hadda la soo dhajinaya wiiga dambe la soo dhajinaya khamiista weeye 15 bisha weeye saandii sheegay maanta ayaamihii uu wadnuhu ka soo guuray booskiisii 3 sentimitir saad sulahay talow ma dhici doontaa baasi doontaa maxaad keeni doontaa insha Allah iskoor aad wanaagsan baad keenteen waataaynu farxadeedii iyo hambalyadeedii iyo isdhiirigelinteedii aynu halkan u fadhino. marka koowaad waxaan kula talinayaa in waqtiga ilaalisaan. waqtiga qof kasta waa hanti la siiyay oo u gaara mana kaydsamo oo haddii meel digis tiraahdid kuma kaydsamayo oo meel kuma dhigmayo. taasi waxay keenaysaa inta yaraad haysatid ee waqtiga aad haysatid inaad ka faa'iideysatid. maamulaha dugsiga oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa mahadnaq iyo talooyin u soo jeediyay ardaydii sanadkan u fadhiisatay imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee waxaan ku qanacsanahay ama dhalinyarada in badan kula taliyay dabaaldeggan oo kale wuxuu ku habboon yahay marka natiijadu soo baxdo. kuma habboona inaynu dhigno xaflad inagoo aan garanayn waxaynu u dabaaldegayno. maanta waxaynu haynaa midhihii iyo wixii aynu keennay farxad bay naga buuxda. ragga qaar abaalmarin baa la siiyey qaarna si guud baa loo ammaanay. markaad nataa'ijkaaga u dabaaldegayso iyo markaad u dabaaldegayso wax kale way kala duwan yihiin runtii. aydkii waa dhammaysteen waa baasteen most of you boqolkiiba 99.5 waa baasteen. maxaa idinka dambeeya waa su'aal laga yaabo in qof kasta caawa isweydiinayo. what's next? waxaan runtii odhan karayaa aan soo ururiye waxaa idinka dambeeya 4 sano oo hawladaga. waxaa ku xiga final exam laga yaabo 4 sano ka bacdi inaad gasho. waxaynu bilaabaynaa imika 1920 2021 21-22 22-23 waxaa ka baxaysaan marka sanadku 2023. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu maamuusay maamulka iyo macallimiintii muddada dheer wax soo barayay ardayda dhammaysatay fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe Maxamed Jookar, telefishinka Ariel, Burco.